maanta meeshan waxaan ku joognaa dadkii madaxda reer Mandera County ahaan governorga MPyalka 6 constituency madaxdii hore iyo wixii siyaasi ahaa oo Mandera ka yimaad kulli iyo senataga kulli waan meeshan joognaa waxaan maanta isku nimaanay waxay tahay inaan ka hadalno arinta ka jirta Mandera County qaas ahaan Mandera East gobolka Mandera East oo Cabdirashiid Janan ninka la yiraahdo oo ka soo baxsaday xabsiga Muqdisho oo ciidankiisa uu keenay magaalada iyada inaan cambaarayno inaan ka hor imaano inaan diyaar u nahay inaan ogolaanaynin marnaba in ciidan uu joogo magaalada Mandera ama meel kamid county-ga Mandera haddana aan madaxda laga soo doortay meeshaas iyo dadweynahaba waxaan u sheegaynaa Cabdirashiid Janan iyo inta taageersanbo inay county-ga Mandera iskaga baxaan oo aadaan meel alla meeshii laga soo dhaweynayo ma ahan sharci ma ahan dad hubeysan inay wadankooda inay soo galaan hubkii ay lahayn inay la soo galaan ayna wadankaas ka dhax dagaalaan oo ka tagaan oo dib soo sameeyaan hadii ku soo laabtaan dadweynaha meel ay ka qoranta ma lahan hadii dadkaas ay rabaan amnesty waa inay qoriyahooda ay ku wareejiyaan booliska Kenya waa inay ku wareejiyaan oo gacan dhiibtaan oo dawladda sideeda ay u geysa meelaha lagu xanaaneeyo dadka maaragtay soo dhiibi oo dagaalka iskiga soo dhiibi marka waxaan leenahay dadka ayada inay magaaladaas ka baxaan sida ugu degdeg badan dhibkana wuxuu ka yimid dhinaca Soomaaliya arin ka dhaxayso dawladii federaalka Soomaaliya iyo Jubaland ayaa saameynaysa marka waxaan oo maqala oo maartay Mandera arkayaan dad wasiiriina iyo madaxweyne ku xigeenna ayaa degan hotel Mandera ku yaalo ciidankii bulxa oo degna oo Jubaland waxa lagu sheegay waxay joogaan buruburu xuduudkii Kenya ay ku dhex jiraan marka arin halis waaye Mandera dib ay ku sugan yihiin laga yaabo in maartay ciidankaasi kan bulxa oo joogo kan Mandera fadhiyo in ay isku dhacaan marka nabadgelyo Mandera ayaa dib ku taagan ma ogolin dhulkaan in maartay laga dhigo meel maartay soo dagaalo waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya iyo nimankan joogaan oo Cabdirashiid Janan kan wasiirka leeyahay Mandera joogo inuu ka baxo magaalada inay ka baxo dadkii taageerayna haday tahay dawladayna inay ka baxiyaan meel ay geey karaan hageeyaan wasiirka amniga qaabilsan waan la hadalnay ninka regionka weyn oo arinta ay qusaysan waan la hadalnay processka uu socda waxaan rajaynaynaa inay moogtay isku dhiirigeliyaan dhibka inuu dhib rasmi yahay sida ugu degdeg badan talaabo laga qaado waana u sii soconaa anagoo mas'uuliyiinta oo dhan inaan arinta engagement-ka wili si xoojino sida dhinaca dawladda talaabo qaadka laga sameeyo waxaan ka soo horjeednaa iska horimaasho nooc walba hata shacabka nafirkooda inay kacaan ma rabno waxaan rabnaa dawladda inay ogaadaan arintan annaga mas'uuliyiinta ee shacabka reer Mandera waan ka soo horjeednaa haday saas tahay meel alloo laga qaabili karo ha geystaan dadka laakiin Mandera magaalada lagu maahin karo dadkaas. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.